waa i kufsaday 9 mar ay kufsaday 9 mar ay kufsaday si li rabo i kufsaday حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان الله وأرجح ونحذن ووح فجع كوكو قنايا داودا أديو مركي آداركتو waxa uu sheegayaa ninkan idin muuqanaya aadka u qiiraysan isla mar ahaantana sawjadiisa ay afkeeda ka sheegaysaa in 9 jeer uu kufsaday nin ku labisnaa diriiska ciidanka dowladda Soomaaliya dhacdada oo xalay ka dhacday xaafadda Garisbaalley ee duleedka magaalada Muqdisho waa i kufsaday 9 mar ay kufsaday 9 mar ay kufsaday si li rabo i kufsaday haddii aad damiir muwaadinimo leedahay oo aad Soomaali tahay kuguna jiro dhiig Soomaali muuqaalka la garee ku mahadsanid daawade kulanti habboon saaxiibada aynu jecelnahay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada channelkeena ducaysana media oo aalaaba aan idinku soo gudbino warbixinaha xasaasiga ah isla mar ahaantana markaasi taagan shakhsigan idin muuqanaya oo ku nool kaam ka mid ah kaamamka ku yaala xaafadda Garisbaalley ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxa xaaskiisa 9 jeer lagu kufsaday isla kaamka ay degan yihiin waxaana kufsaday shakhsi ku labisnaa diriiska ciidanka dowladda Soomaaliya waa sida uu isagu afka ka qirayo isla mar ahaantana iyadu ay sheegayso gabadha oo la qariyay isla mar ahaantana uu soo qaatay TV-ga Somali Cable oo ka mid ah TV-yada maxalliga ah ee ka howlgala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa lagu qariyay gabadha isla mar ahaantana afkeeda ay ka qiraysaa in nin ku labisnaa diriiska ciidanka dowladda Soomaaliya $10 darteed uu ugu kufsaday gabadha 9 jeer in 9 jeer la kufsaday waa wax dhibaato ah isla mar ahaantana u baahan in cadaaladda la horkeeno haddaba ila milicsada wade shakhsiga qabay gabadhan 9 jeer la kufsaday isla mar ahaantana ku nool deegaanka Garisbaalley ee duleedka magaalada Muqdisho waa i kufsaday 9 mar ay kufsaday 9 mar ay kufsaday si li rabo i kufsaday naagtaadu waxa ku xiran tahay haddii xaaskaada tahay $10 ku xiran haddii aad damiir muwaadinimo leedahay oo aad Soomaali tahay kuguna jiro dhiig Soomaali muuqaalka la garee ku mahadsanid daawade